الحمد لله على نعمائه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلهي سبحانه وتعالى وحن كبرينا إن خيرك وناق ونوافجيه dhibaatada iyo silica iyo rafaadkan uu naga saaro sharka iyo cadaabkana Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu naga badbaadiyo. Munaasabadan kooban oo aan idin kala soo hadlayno masjidka Al-Huda ee magaalada Helsinki ee dalka Finland, waxaan rabaa inaan anoo ku hadlayo magaca masjidka iyo magaca dhammaan ummadda Soomaaliyeed ee Finland in aan halkan tacsi uga dirno dhammaan dadkii muslimiinta ahaa ee ehelkooda si guud iyo si gaar ahaaneedba ku waayay dhacdadii xanuunka badnayd ee 14 bisha Oktoobar ee mid la mid ah inta la xusuusto aan wadanka soo marin oo dhowr boqol oo qof oo Soomaaliyeed halkaas ay ku dhinteen, in badan oo ummadda ka mid ahna hadda ay naftoodii wali isbitaalada lagula tacaalayo. Ilaahay waxaan leenahay subxaanahu wa ta'ala intii dhimatay Allah u naxariisto. waxaa weeye kollaysaan Ilaahay ka rajaynayno waa shuhada sida Ilaahay sida rasuulka sallallahu alayhi wasallam xadiistiisa uu ku tilmaamay culimaduna ay noo sheegeen. waxaan iyaga Ilaahay uga rajaynaynaa inay shuhada yihiin, Ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu ka aqbalo intii ehelkooda ku weeday halkaasna uu samir iyo iimaan uu ka siiyo. waxaan jeclahay kelmadan munaasabada inaan dhowr arrimoodba uga faa'iideysto. kow, maxaa inaga ka muslim ahaan arrinkaas nagala gudboon, maxaase loo baahan yahay in aan wax ka qabanno oo aan ku cibri qaadano. marka ugu horeysa anaga ka muslimiin ahaan waxaa nala gudboon meel hoo u baahan hadal wax kama taro. dadkii way dhibaataysan yihiin, waad arkayseen warbixinihii ugu dambeeyey ee maanta Suudaan iyo safiir jaamac Turkiga uu ka soo diray oo runtii aadka u naxdinta badnayd. khayr Allah ka siiyo safiirka si wanaagsan oo wacan uu u gutay shaqadiisa isla markaana u soo bandhigay inta wadankii gudaha joogta oo rafaadsan. dadkaasoo dhan waxay nooga baahan yihiin waxtar. cid aan annaga ahayn oo u maqanna ma jirto. waxaa weeye dadkoodii iyo ehelkoodii annaga u ah. waad ogtihiin siyaasadaha maanta caalamka ka jira aadka u foosha xun, wadankaasaa u baaba'ay ee haddeer indhihii kala qaaday ee dowladdiisii usoo noqon rabtay in markiiba lagu bilaabay dagaal iyo qarax iyo dhibaato la rabo in lagu curyaamiyo jiritaanka ummadda Soomaaliyeed. laakiin aan leenahay Ilaahay subxaanahu wa ta'ala nooma diidin haddaan nahay dadkii waxgaradka ahaa ee ummadda in aan dadkaa waxtarno. marka walaalayaal, cid kasta oo awoodda in ay waxtarto dadka muslimiinta ah, meel walbana muslimiinta iyo culimadu way ka bilaabeen. masaajidka Al-Huda xamladaas waa bilownay, wayna socotaa. qof walba oo awooda wixii uu ku bixin karo maanta inaan loo kala harin masaajidka iyo maamulka la soo xiriiro la keeno si markaa xoolahaas muslimiinta loogu talagalay gacan aamin ay ugu dhacaan, meel saxan ay u maraan. taas waa midda guud ee aan dadka ugu baaqayo. cid kasta oo doonaysa inay ku tabarucdana waxay la soo xiriiri kartaa hadduu eebba idmo masaajidka ayay la soo xiriiri kartaa. middaas haddaan intaa uga baxo, maxaan ka baranaynaa darsigaas? wax walboo dhaca waxaa laga bartaa, waa lagu cibro qaataa. maxaa yeelay Ilaahay subxaanahu wa ta'ala xigmad iyo cadaalad uu Ilaahay subxaanahu wa ta'ala dhammaystiranka cadaaladiisa iyo xigmadiisa ayay wax walba ku dhacayaan, wax walbana tusaale ku jira. waxaana laga rabaa kow marka ugu horeeya horta in aan Ilaahay subxaanahu wa ta'ala u toobad keenno dhammaan haddaan nahay ummadda muslimiinta, gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed. maxaa yeelay Ilaahay quraankiisa wuxuu ku leeyahay in allaha laa yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bianfusihim. Ilaahay cadaaladiisa iyo xigmadiisa dhammaystirnaanteeda waxaa ah in uusan dadku xaal ay ku jireen uusan ka bedelayn oo xaal kale u bedelayn. hadday khayr ku jireen shar uguma bedelayo, hadday shar ku jireenna khayr uguma bedelayo, hadday barwaaqo ku jireen abaar laga dhigi maayo, iyagoo abaarahana barwaaqo u noqon maayaan ilaa iyagu inta ay naftooda ka bedelayaan. oo hadday wanaagsanaadaanna Ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu wanaag siinayo, hadday xumaadaanna ciqaab ay helayaan. weliba Ilaahay quraankiisa uu ku tilmaamay wayacfu can kathiir, in badan ayuu Ilaahay noo dambi dhaaf. walow yu'aakhidu Allahu an-naasa bidulmihim ma taraka cala dhahri daabba. haddii dadka lagu qaadi lahaa dembiga ay galeen dhulka dushiisa neefle loogama tageen. laakiin wayacfu can kathiir, in badan ba Ilaahay noo dulqaati. marka ugu horeysa marka in aan Ilaahay u toobad keenna dhammaanteen oo dunuubta iyo xumaanta
iyo qabyaaladda iyo musuq maasuqa iyo diin nacaybka iyo dal nacaybka aan iska dayno oo ilaahay dhammaanteen aan u toobad keenno kulligeen waxaan nahay dambiilayaal dadkana waxaa ugu fiican sidii nabiga calayhi salaam u sheegay kuwa dembigooda ka toobad keena midda labaad walaalayaal oo darsiga u baahan waxay tahay haddaynaan inagu wax qabsan cid noo maqan ma jirto in badan waxaa la isku canantaa waxaan wax qarxinaya maxaa loo heli waaye dadkan wax qarxinaya ciday doonaan ha ahaadaan kaama naf jecla kaamana awood badna laakiin waxay ogaadeen ducfiga ummadda Soomaaliyeed haysta oo ah in inta lagu qarxinayo adinkiina aad isku haysataan qabiil iyo goboleys aad isku haysataan laan iyo waxaan qiimo ku fadhin aad isku haysataan wax aan jirin iyo kursiga baarlamaanka qof baa ka maqan bal hadda meel walba fiiri maxaa la isku haystaa heerkii baarlamaanka kuma jiraan uma dhamin kan iyo waxaan jirin oon macno lahayn ayaa la isku haystaa marka waxaa loo baahan yahay in khuraafaadkaas inta laga soo haro xariga ilaahay la wada qabsado war dowladnimadeennii iyo sharafteenni iyo diinteenni aan soo ceshano oo aan maaragtay isku duubnaano oo qabyaaladda laga tago haddii aan saa yeeli weyno waxaad ogaataan in qaraxyadan iyo kuwa la midana ay nagu sii socon doonaan kow waxaa kaloo la rabaa in dhaalimka nagu dhex jira aan qabanno nin kasta waxa weeye wuu yaqaanaa waxaan hubaa oo aan ku soo toosaya oon ku seexanaya in nin kasta uu yaqaano ninka xumaanta samaynaya bal waxaa hadda wararka lagu hayaa ragga qaarkood ama ganacsato ha ahaadaan ama maaragtay madax ha ahaadaan ama dad waxle ha ahaadaane lacagta baadda ee lagu qarxinaya iyaga in laga qaado sidee buu nin adiga kula mid ah oo naftaadoo kale leh ayuu lacag baada kaaga qaadi kara oo adiga kugu qarxin karaa maxaa diiday damiirkii aaway in aan iska qabanno dhaalimka nabiga calayhi salaatu wasalaam waa tuu lahaa unsur akhaaka dhaaliman aw madluuman walaalka u gargaar haddii uu dhaalim yahay iyo haddii laga gardaran yahay rasuulka sallallahu alayhi wasallam saxaabadu way yaabeen haddii laga gardaran yahay garanay hadduu gardaran yahay laga gardaran yahay garanay haddii uu gardaran yahay maxaan ku qabanaynaa markaasuu wuxuu yidhi tacajizuhu can idulmi garbahaad qabanaysaan ma idinla tahay dadkuna way ogyihiin wadamadan aynu joogno ee reer galbeedka ah hadda Finland soo anagu ma joogno caawa haddii qof intuu soo galo magaalada wax yar oo khalad uu ka sameeyo waxa weeye isla caawa hadday ugu badato maalin buu ku sii jiri karaa isla markiiba waa la soo sheegaya yaa soo sheegaya dadka wadanka jooga oo dhan nin kasta waxaa lagu soo tarbiyay in wadankiisa ilaashado hadda ka hor qiso ka dhacday nin Daanisha ayaa laba boolis magaalada Helsinki ku dilay uu baxsaday ninkii markuu baxsaday wuxuu aaday magaalo Hamalina la yiraahdo oo 100 kilomitir u jirta magaalada caasimaddu tagay hotel buu degay oo iska seexday maalintii dambe asagoo ninku hadda waa nafli waxba u baahanaya farmasi buu damcay inuu daawo ka iibsado maalin kadib ay heedsan jeclahay naagtii farmasiga iibinaysay ayaa garatay sawirkiisii isla markiiba booliska hore ka wacday daqiiqad baa ninka lagu soo qabtay annaga haddaan saa yeelin oo wadankeena aanan u halgamin oo ninka baadda bixinayo aadan baadda joojin ee aadan iska qaban ninka og midka wax qarxinaya ciddu doon ha ahaad aadan soo qaban weligen horumar ma gaareyno ciidan dawladeed iyo nabad sugid kaligiis wax ma tarayo ani waxaan ku soo gabagabeynaa oran lahaa war dalku dad buu u baahan yahay ma noqonayna dadkii dalkooda ka ilaashanaya cadowga ma garab istaagayna dadka u heelan arintaas ama culimaha ahaato ama dawlad ha ahaatee cidii arinkaas u heelan ma garab istaagayna ma soo ceshanayna dawladnimadeennii mise waxaan ku jiraynaa looma dhama iyo reerku waa ka maqan yahay imisaan ku jirnaa 27 sano maraynaa waa ujeedaan dhiigeenu qubanaya waxaan leeyahay marka aayadaas ma ku soo khatimayaa inna allaha laa yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim aan tashanno aan ka fakarno danaheena aan isku dayno sidii aan sharafteena soo ceshan lahayn dadka walaalahana wax u tari lahayn ilaahayna waxaan mar kale ka baryaynaa in naxariistiisa uu ka waraabiyo iyagana dadkii ehelkooda oo ka dhintayna samir iyo iimaan uu ka siiyo annagana uu naga dhigo kuwa ku cibro qaata wanaagana sameeya hada wabillahi tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh